haddii aad hore noogu xirnaan jirtay soo dhawow welcome back haddaad nagu cusub tahay fadlan riix subscribe si aad noola socoto share dheh si asxaabtaad uga faa'iidaysato like gumaaha lacaga noo saar please subscribe like and share thanks. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامي سومالي محمد ملك استودى الدنيا ذا كتشوكتين وولاشين وبح ورسمائي مركلة إيه تلذي تلعادة أسبوعاً سيداد مقلي سيمبا إن هستا مريم مرسل آد أي وحا إيسا حسوس الساعة إن جعيلك أنو قبو ودنك هويو إيو ودنك نسيدو قنئو يهي مرك أسبوعاً وحان ربا إنا وحير كتابتو sida aan ugu baahannahay in dadkeena bulshada dadkii Soomaaliya jooga aan ugu dhiirigelin lahayn anaga dad yooga arkay meelaha kale sidaan ugu dhiirigelin lahayn sidii ay u jeclaan lahaayeen dhulkooda wadankooda iyo kheyraadka ay ka soo saaran karaan waxaan xasuustaa markaan anigu ahaa caruurta ayadoo markii alaabta dhaqan la yiraahdo yaanyada dhulka lagu daadiyo ay ka soo baxdaan xasuustaa gurigeena babay ku beeran yahan xasuustaa fertilizers lama sameyn jirin ciidda ayada fertiles ka ahayd ciideena aad ayay maaragtay qani u ahayd marka waxaan ku dhiirigelin lahaa oo aan annaga inteena fahansan aan jeclaan lahaa inaan ku dhiirigelino dadka walaalaheen ah ee wadanka jooga Soomaaliya dan yar baa leeyahay waan ognahay shaqooyin badan ma leh laakiin ayadoo saas tahay waxaad moodaa waqti badan ayagoo gacanta ku haysta dadkii inaysan ka faa'iideysanaynin waqtigaas badan ay gacanta ku haystaan marka waxaan oran lahaa in aan ku dhiirigelino inteena fahansan waxa ay samaysan karaan guryahooda meesha ciidaas ay joogaan yaanyo yar bagal muxuu ahaa qare waxyaabaha ay dhulka inta geliyaan aan uga baahnayn hawl badan oo ay beeran karaan dadkii waxaad moodaa ayagoon waxba haysan haddana waqti badan gacantooda ku haysta waqtiga badnaa inaysan ka faa'iideysan dadku inay fahmaan in gacantooda waxyaabo badan ay ku samaysan karaan ciidda Soomaaliya waa ciid qani ah marka waxaan oran lahaa walaalayaalow hooyo kasta oo de hooyooyinku aad bay maaragtay intay wax yar حتى ميس انتي سو سارتان ان يربي waxay ka keenan oo ka soo saaraan ay ilmihi ku koriyaan oo reerka dhan ku hayaan waan ognahay way dadaalaan laakiin waxaan oran lahaa hooyooyinka ilmahooda roon iyo ilmaha yar yar oo waqtiga haystaan gacantooda waqti badan iskuul ama dugsi haday ka yimaadaan ama qaar aan ba iskuul dhiganinba si aysan waqti badan oo ay waxyaabo kale ku sameeyaan aysan u helin in ay jeclaysiiyaan in waxa la abuurto oo soo baxa oo hadhowna la tuso ilmihii la yiraahdo waxaan adaa abuuray haddana bal eeg markay soo baxeen manaafacaadka annaga dhan ku samaysanayna reerka dhan bay anfacaysaa yaanyadii ilmaha yar abuuro in geed haddii la abuuro muxuu ahaa xaafadaha hortooda in ilmihii hadday qashinka xataa iska aruuriyaan ilmihii in la dhiirigeliyo oo xaafad walba ay samaystaan si ay yiraahdaan beer yar oo guryaha gadaashooda lagu beerto oo la isku gacan siiyo oo wax laga soo basasha ama toonta ama baradhada ama wax alla wixii meelahaas ka bixi karo dhan lagu dadaalo la soo saarto oo ilmihii lagu dhiirigeliyo aan beerano wax aan annagii dhulkeenii wax ka beerano waayo waa ciid qani ah marka waxaan oran lahaa walaalayaalow inta fahmaysa ha ku dhiirigeliyaan dadkii intii ay cid kale wax ka sugi lahaayeen inay iyaga wax soo saartaan inay guryahooda yaanyadii
iyo maaragtay basashii baradhadii muxuu ahaa bagalkii qarihii babaayga wadankan aad buu uga bixi jiray xaafadeena xasuusta soo ka baxa waxyaabaha bixi kara inay dadkii beertaan hooyooyinka inay ku dhiirigeliyaan dee raggii aabayaasha inay ku dhiirigeliyaan dad yooga fahansan inay caawiyaan community-ga dad inay u soo baxaan dhalinyaradii oranaya aan xaafadaha wax ka beerano waxaan jeclaan lahaa intaas lagu dhiirigeliyo insha Allah oo la jeclaysiiyo waxa aad adigu waqtiga geliso oo hadhow markay soo baxaan la cuno mirahoodii faa'iidada ay leedahay ilmihi xataa niyada loogu dhisayo oo la tusayo wax ayaga ay yaanyo miraheed ay abuureen soo bixidii ay soo baxday ilmihii lagu dhiirigelinayo oo niyadoodii lagu dhisayo oo maaragtay la tusayo wax uu ilmihii sameeyay oo reerkii ku manaafacaadsanayaan marka jeclaada wadankiina wadan shisheeye annaga ku nool dhibaatooyinkan kala kulanno idinku ma haysatiin waan ognahay oo de waxbarasho iyo shaqo iyo waxyaabaha annaga hadda aan ka heli karno halkan idinku kama heshaan laakiin wadankii inaad jeclaatiin ilmaha in la baro qashinka in meel walba aan lagu tuurin ilmaha in la baro dhulka waa dhulkiinii xaafadda waa xaafadiinii gurigu waa gurigiinii neighborhoodka ama xaafadahan dhow waa xaafadihiinii waa ciyaalka aad isla ciyaaraysiin meeshaad ku ciyaaraysiin qashimada aan ka aruurino waalidku inay dhiirigeliyaan marka ilmaha ha lagu booriyo sida iyagu wax ku beeran lahaayeen sida iyagu ay xataa hal tamaadho yaanyo yar ha ahaato hal babaay geed ha ahaado ilmaha waa mid walba haddii xataa geed hebel baa beeray lagu yiraahdo wax badan bay u taraysaa marka dhiirigeliya ubadkiina guryihiina ciidiina inaad ka beeran kartiin حتى يعني بس يعني دي لغو كرسن لها والله فائدة بدن بين الله سائل مين ويدير النساء ومهسنتين وحنرجينيا إن شعلاتين حافظين وحكو بيرتين كفائدة 60 عيد نقنقة إن وضمان dadka jooga meel aysan ciid fiican haysan oo ciidii la bacriminayo ayay wax ku beertaan oo ay maalin walba bacrimin wax lagu bacrimiyo ciidii ku sameeyaan anagu soo wadankeen ciideena bacrimin uma baahneen marka aniga ugu dambeysay 20 sano ka hor bay ahayd hadaanan ciidii la goranin de oo aan ciidii dhamaanin haday wali ciidii anigu markan ciyaalaha ay wali taalo wadankii wax badan baad ka bedeli kartaan xaafadiina ku abuuran kartaan fadlan isku dhiirigeliya gaarsii intaad gaarsiin kartaan. Thank you so much. Share the video, subscribe. أدبأ أمهات سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.